mid ka mid ah dalalka ugu caansan dunida luqadda Isbaanishkuna ay ku abtirsato. waa dhulkii ay muslimiintu xukumayeen boqolaalka sano ilaa maantana uraadkoodu ka muuqdo. waa muuqaal soo gudbinaya xogaha mudan in laga xuso dalka Spain. Spain waa dal dhul ahaan dhaca meelo kala duwan sida Yurub, badweynta Atlantiga, Afrika iyo badda Mediterranean-ka, laakiin qaybtiisa ugu weyn waa mid dhacda galbeedka qaaradda Yurub, waana dalka haysta 82% oo ah dhulka ay ka kooban tahay jasiirad-lamoodka Iberian. waxaana jasiirad-lamoodkan la wadaaga dalka Portugal oo kaga beegan dhanka galbeed. buuraha Pyrenees ayaana kala qaybiyaan Spain, Faransa iyo sidoo kale dalka yar ee Andorra. mandiqadaha ka baxsan dhulweynaha Spain isla markaana Spain hoostaga waa jasiiradaha yaryar ee Canary ee dhacaan badweynta Atlantiga, jasiiradaha Balearic ee dhacaan badda Mediterranean-ka, iyo labada magaalo ee kala ah Ceuta iyo Melilla oo dhacaan xeebta waqooyi ee Afrika. waana magaalooyin leh maamul madax bannaan oo hoostaga dowladda Spain, waxayna xad la leeyihiin dhulweynaha Morocco. sidaas si la mid ah waxaa dhulka Spain dhacda mandiqada istiraatiijiga ah ee lagu magacaabo Gibraltar, waxaana mandiqadan iska leh oo ay hoos tagtaa boqortooyada Ingiriiska. wuxuuna dhulkan Ingiriisku kula wareegay heshiiskii Treaty of Utrecht ee la saxeexay sanadkii 1713. webiga ugu weyn dalkan waa Rio Ebro, buurta ugu dheerna waxaa lagu magacaabaa El Teide on Tenerife. jasiiradda ugu weyn dalkana waa Mallorca. harada dabiiciga ee ugu weyn ee uu dalkan leeyahayna waa harada Sanabria. dalkan dhaqaale ahaan waa mid aad ugu tiirsan dhanka warshadaha. waxa ugu badan ee uu dibadda u dhoofiyana waa mashiinada, dharka, gawaarida iyo wax soo saarka petroolka. waxaana lacagta uu adeegsado dalkan lagu magacaabaa euro, oo wuxuu ka mid yahay 19 dal ee ka midka ah midowga Yurub ee adeegsada lacagtooduna tahay euro, waxaana la isku yiraahdaa Eurozone. dalkan waa mid leh taariikh aad u qoto dheer, wuxuuna soo maray marxalado xasaasi ah oo laga qoray buugaag taariikheed oo xogtoodu muuqaalkan aynu ku soo koobi karin. balse taariikhda iyo ilbaxnimada dalkan waxay hilaacday oo si dhaba u soo bilaabatay sanadkii 712 miilaadiyada, markaas oo ay muslimiinta iyo umawiyiinta u tallaabeen jasiirad-lamoodka Iberia oo maanta inteeda badan ka kooban dalalka Spain iyo Portugal. waxaa xilligaasi dhulkan ka bilaabatay taariikhda Andalus ama casriga Andalus, waxaana furteen dhulkan Musa ibn Nusayr iyo Tariq ibn Ziyad. waxaa dhulkan ka aasaasmeen dowlado badan oo Islaamiya, wuxuuna dhulkan xilligaasi ahaa mid koobsaday cilmi iyo ilbaxnimo soo jiidatay boqoradii reer Yurub. waxaana laga xusi karaa aqoonyahaankii iyo culimmadii cilmiga ee muslimiinta ahaa ee uu dhulkan ku caanka ahaa sida Abu al-Qasim al-Zahrawi oo loo tixgeliyo inuu yahay dhakhtarka qaliin ee ugu weynaa qarniyadii dhexe. sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa aabbaha qaliinada casriga, Father of Modern Surgery. culimo badan oo muslimiin ah oo dhanka cilmiga ku talax tageen ayaa casrigii Andalus dhulkan ka iftiimayeen, sida dhir iyo dawayaqaankii lagu magacaabay al-Kaafiqi, kaasoo ururiyay isla markaana buug qura ku qoray 1400 oo dawo caafimaada. muslimiinta ama Andalus waxay dhulkan kaga tagtay ilbaxnimo gaamurtay oo ilaa maanta Spain ay ku faanto loona dalxiiso, sida qasriga cajiibka ee Al-Hamra ee ku yaala magaalada Granada. waxaana qasrigan darbiyadiisa ku qoran aayado Qur'aan ah. sidoo kale waxaa magaalada Cordoba laga helaa masjidka caanka ee Grand Mosque of Cordoba. boqorkii boqortooyadii Castile ee Ferdinandkii saddexaad ayaa duulaan kula wareegay Cordoba sanadkii 1236, kadibna wuxuu masjidkan u bedelay kaniisad. 711 ilaa 1492 miilaadiga, Spain waxay ahayd mid ka duwan Yurubta kale, waxayna ku naaloonaysay ilbaxnimo ay muslimiintu horboodayeen. 1492 Christopher Columbus ayaa gaaray Ameerika, waxayna kadib Isbaanishku bilaabeen inay xoojiyaan imbiradoriyadooda, waxayna awoodoodu gaartay ilaa Ameerika, halkaas oo ay ka bilaabeen nidaam gumaysiya. waxayna qarnigii 16aad boqoradii Isbaanishka xitaa xukumeen dalal badan oo qaaradda Yurub dhaca sida Portugal, Netherlands, Austria, Germany, Italy iyo qaybo ka mid ah Faransa. 1936 ilaa 1939 waxaa Spain ka dhacay dagaal sokeeye, markaas oo uu kaligii taliye General Franco uu la wareegay xukunka dalka. 1975 Franco waa uu geeriyooday, waxaana boqorka dalka Spain noqday Juan Carlos koowaad, waxaana isna taajka boqornimo 2014 kala wareegay wiilkiisa Felipe oo ilaa maanta ah boqorka Spain. calanka dalka midabkiisu aragtiyo kala duwan ayaa laga aaminsan yahay, laakiin aragtida xooggan waa in midabka gaduudan uu taagan yahay awood iyo geesinimo, halka midabka jaaluhuna uu taagan yahay wanaagsanaanta. astaanta dhexda kaga taalna
sida guud waa mid u taagan nidaamyadii boqortooyo ee midoobay isla markaana ay Spain ka aasaasantay. Spain waa dal leh boqortooyo dastuuri ah ama boqortooyo ee awoodeedu xadidan tahay. Magaca rasmiga ah ee dalkaana waa Kingdom of Spain ama boqortooyada Spain ama Reino de España. Spain nidaamka dawliga ay leedahay waxaa lagu sheegaa mid unitary state ah oo ay dawladda dhexe awoodda ugu badan ay leedahay. Sidaas oo ay tahayse dalkan waxaa loo qeybiyaa qaab gaar ah oo la yiraahdo autonomous communities, waxayna tir ahaan gaarayaan ilaa 17. waxaana ka mid ah Andalusia oo mar ahayd wadnaha xukunkii muslimiinta, halka uu magaca ismaamulkan ka yimidna waa Andalus. Saddexda magaalo ee ugu waaweyn Spain waa Madrid, Barcelona iyo Valencia. Madrid waa caasimadda dalka, waxaana sida guud ku nool dad ka badan 6 milyan, waana magaalada labaad ee ugu weyn midowga Yurub, waxaana ka weyn oo kaliya caasimadda Jarmalka ee Berlin. guud ahaan dadka ku nool Spain tiradoodu waa ilaa 48 milyan, waxayna intooda badan ku nool yihiin xeebaha ku tirsan badweynta Atlantiga iyo badda Mediterranean-ka. sidoo kalena 80% waa dad reer magaal ah oo dhanka magaalooyinka ku nool. ilaa 88% oo dadka dalkaana waa Spanish, inta kale ee soo hartayna waxay isugu jiraan Latin, Romanian, dad ka soo jeeda waqooyiga Afrika iyo dad dhalashada dalkan qaatay oo dalal kala duwan oo caalamka ah asal ahaan u laabanayaan, gaar ahaan dalalka bariga Yurub. dabcan luqadda rasmiga ah ee dalkan waa luqadda Isbaanishka, waxaana luqadda Isbaanishka ee Spain lagaga hadlo loogu yeeraa magaca Castilian Spanish, oo ay ka yara duwan tahay luqadda Isbaanishka ee Latin America lagaga hadlo. Spain waa asalka luqadda Isbaanishka, maantana waa luqadda labaad ee ugu badan ay ku hadlaan dadka native-ka ama dhaladka. luqadda koowaadna waa luqadda Chinese-ka ama Mandarin-ka. dadka ku hadla luqadda English-ka intooda badan waa kuwa bartay, laakiin marka la eego luqadaha ay ku hadlaan dadka dhaladka ah, luqadda Isbaanishka ayaa ah midda labaad ee dadka ugu badan ay ku hadlaan, waxayna luqadoodu koowaad u tahay dad gaaraya 500 milyan. marka laga yimaado luqadda Isbaanishka, sidoo kale Spain waxaa lagaga hadlaa luqado kale sida luqadaha Aragonese, Basque, Galician iyo luqadda Catalan oo inta badan lagaga hadlo ismaamulka Catalonia ee damaciisu yahay inuu ka go'o Spain. dadka dalkan ilaa 56% oo ka mid ah waa kuwa aaminsan diinta Kirishtaanka, gaar ahaan waa kuwa raacsan kaniisadda Katoliga. 39% waa kuwa aan wax diin haysan, inta soo hartayna waxaa ka mid ah dad haysta diinta Islaamka. dadka dalkan waa kuwa aad u xiiseeya kubadda cagta, waana dalka ay ka dhisan yihiin labada naadi ee dunida sida weyn looga yaqaano ee Real Madrid iyo Barcelona. koonfurta dalkan, gaar ahaan Andalusia, waa mid qani ku ah dhanka dhaqanka, waxaana laga helaa fardaha Andalusian oo ku caana xawaare iyo awood sare. waxaana ka jiraan ismaamulka Andalusia isu soo baxyo dhaqameed oo qaarkood laga ciyaaro ciyaarta flamenco. dabaaldegyada dalkan lagu qabto waxaa ka mid ah dabaaldega tomaatada ama yaanyada ee La Tomatina. waa isu soo bax madadaalo oo ay dadku isku tuureeyaan tomaatada ama yaanyada, waxaana lagu qabtaa tuulada Bunol Arbacada u dambeysa bisha August. waqooyiga dalkan, gaar ahaan tuulada Pamplona, waxaa ka dhaca maharajaanka orodka dibida. 6 dibi ayaa dadka ciirsada, waxayna dadku isku dayaan inay hor cararaan dibida. tirada dibida mararka qaar ilaa 10 ayaa la gaarsiiyaa, waxaana xirmaan jidadka iyo isu socodka tuuladan. sida guud cuntooyinka laga cuno dalkan waa kuwa ka kooban sida baradhada, bariiska, kalluunka, hilibka iyo digirta. waxaana laga xusi karaa cuntooyinka dalkan sida paella, gazpacho, coca iyo empanada.